xirfadaha aan ku heli karo shaqo iyo tilaabooyinka layga rabo inaan qaado. qof walba marka uu wax barto ama uu yeesho xirfadii uu ku shaqaysan lahaa waxa uu dadaal dheer u galaa in uu shaqo helo. helitaanka shaqadu waxay kaga baahan tahay in aad lahaatid xirfadihii aad ku kasban lahayd. kasbashada shaqaduna ma ahan arrin iska fudud sida ay dadka intooda badan u maleynayaan. tusaale ahaan oo kale marka uu company ama ay shirkad ay soo bandhigto shaqo kama dhigna qof walba oo shaqadaas doonaya in uu si fudud u heli karo shaqadaas. marka si aad ugu guulaysatid shaqadaas waxay kaga baahan tahay farsamooyin iyo tilaabooyin muhiim ay tahay in aad qaado. marka hore dadka shaqadaas doonaya waxa ay soo gudbinayaan ama ay keenayaan CV-yadooda goobta shaqada. maamulka kambaniguna waxa uu diyaar garoobayaa in uu kula yeesho interview. interviewgaas oo go'aamin doona in aad shaqadaas heshid in kale. maamulka kambanigu waxa uu si xirfad ay ku jirto u kala shaandheynayaa dadka shaqadoonka ah. marka maxay tahay arrimaha ay muhiimka tahay in aan ka digtoonaado markaan isku diyaarinayo interviewga. arrinta koowaad waxay noqon kartaa inaad ilaalisid nadaafadaada. nadaafadaada dhar ahaaneed iyo midaada jir ahaaneedba waa inaad ka taxadaraa. arrinta labaad waxay kuu noqon kartaa inaad ilaalisid waqtiga interviewga lagu yeelanayo. maamulka kambaniga ama dadka shirkadda ee kula yeelanaya interviewga waxay diirad weyn saarayaan ama ay isha ku haynayaan si aad u ilaalinaysid waqtiga lagu yeeray in aad kambaniga timaadid si interview looga yeesho. interviewguna ama ilaalinta waqtigana waxay kaa bixin kartaa sawir fiican ama khaldan. arrintaas oo muhiim ay tahay in aad taxadar weyn saadid. arrinta saddexaad lagaga baahan yahay in aad u diyaar garoodid ka hor inta aadan interviewga ama aadan tegin goobta shaqada waxay tahay in aad baadhid xog ku saabsan kambaniga. tusaale ahaan oo kale dadka interview kula yeelanaya waxay ku weydiin karaan xilliga la aas-aasay kambaniga oo kale adeega ama mataqaanaa agabyada uu bixiyo kambanigu waxay yihiin iyo su'aalo noocaas oo kale. marka waxay muhiim kuu tahay in arrimahaas aad baadhid ka hor intaadan aadin kambaniga ama meesha aad interview ku gelisid. marka interviewga aad gelisid waxaa jira arrimo ay muhiim tahay in aad ka digtoonaatid. arrimahaas waxaa ka mid ah in aad leedahay communication skillska sida inaad ku fiican tahay dhegaysiga oo aadan abuurin dood iyo wixii la mid ah. in aadan qofka hadal ku kala jarin ama aadan ka dhexgelin. sidoo kale waa inaad samaysaa wax walba oo kaa fogeyn kara in aad dood ama buuq aad la yeelato qofka interview kula yeelanaya. arrinta kale waxaa weeye in aad si quman uga jawaabtid su'aalaha lagu weydiinayo. mar walba waxaa fiican in aad ku jawaabto jawaabo aad isfilayso in ay qancinayso cidda interview kula yeelanaya. marka waxaa jira asbaabo qofka ku keena inuu shaqo la'aan noqdo. arrimahaas haddaan dul maro waxaa ka mid ah qofka aan lahayn aqoon ama aan soo baranba ama aan lahayn xirfad uu ku shaqaysto. arrintaas waxay kugu keeni kartaa in aad shaqo la'aan noqoto. arrinta labaad waxay noqon kartaa suuqa shaqada ama fursadaha shaqada ee suuqa oo yar. suuqa aysan hal abuurid ka jirin ama wax shaqo abuur sameynaya oo qof walba uu doonayo inuu shaqaysto. arrimaha qofku inuu ka dheeraado ay fiicanta waxa weeye inuu mar walba ku haamiyo inuu shaqaale noqdo. waxaa mararka qaarkood kuu fiican in aad keentid fikrad aad ku shaqaysan karto ama aad shaqo abuur ku samayn karto. arrinta kale ee keeni karta inaad shaqo la'aan noqoto waxaa ka mid ah in aad ku dhacdid interviewga loola yeelanayo ama in aad si fiican
aadan u diyaarin CV-ga shaqada